ไปขอเชิญนางสาวณัฐ ประภา ศรีนุเดชค่ะ assalaamu calaykum ku soo dhowaada daawadayaal qisadan ku cibro qaadashada mudan waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Saki Maxamuud balse intaynan u gudagelin muuqaalka fadlan muuqaalka like saar sidoo kale haddii aad ku cusub tahay channelka Dacwa Tube fadlan ku soo biir oo subscribe saaro maalin maalmaha ka mid ah iskuulkani waxaa lagu qabtay xaflad lagu xusayo waxa loogu yeero maalinka hooyooyinka Mother's Day waxaana xafladda loogu yeeray dhammaan waalidiinta ay caruurtoodu dhigtaan iskuulkan arday walba waxaa loo ogolaaday inuu mimbarka ka soo jeediyo taariikhdii ay soo wada mareen isaga iyo hooyadii markii ay soo istaagtay gabadhan waxay ku bilowday hadalkeedii subax wanaagsan martida halkan iskugu timid maanta halkan waxa idinkaga sheekeen doonaa qisada hooyadii macaan แม่เป็นคนชอบโกหกไม่เคยทำได้อย่างที่สัญญาไว้สักอย่างเหมือนวันนี้ที่แม่สัญญาว่าจะมา hooyaday mar waliba been ayay ii sheegi jirtay oo waxay ii rabtay markii aan yaraa warqad ay ku qoran tahay hooyo waan kuu soo noqon doonaa ee ha murugoonin balse hadda waxaan ogaaday qof dhintay inuusan soo noqonaynin hooyaday waxay ahayd mid ku mashquusha har iyo habeen shaqada guriga iyo tan banaanka si aan ugu noolaado nolol farxad leh subax waliba waxay iga toosin jirtay hurdada dabadeedna wax i bari jirtay sida loo sameeyo quraacda oo ay ka mid ahayd sida ukunta loo shiilo mana hilmaamin quraacdii ay siin jirtay markii ay sidaas tiri dhammaan dadkii meesha fadhiyay ayaa ku qoslay hadalkii gabadhii laakiin gabadhii ayaa ku tiri waad iska dhoola cadaynaysaan balse ma ogeediin qisada dhabta ee aan soo maray gabadhii ayaa hadalkeeda ku soo gabagabaysay iyadoo oranaysa wali ma aanan hilmaamin quraacdii macaaneed ay hooyaday isiin jirtay isla waqtigaas waxaa indhaheeda ka soo daadatay ilin gabadhan ayaa fiirisay warqadii ay akhrinaysay laakiin ma aysan ahayn warqad uu qoraal ku qoran yahay balse waxaa ku sawirnaa iyada iyo hooyadeed gabadhii ayaa tiri hooyo waxaan kuu sheegayaa dadaalka aad igu bixisay inuusan khasaarin balse heerka maanta aan joogo waxaan ku soo gaaray dadaalkaagii markii aan yaraa igu soo bixisay haddii aan maalin noqdo hooyo waxaan carruurteeda u noqon doonaa sida hooyadeeda oo kale gabadhii ayaa fiirisay kursiga hooyadeed loo diyaariyay oo cidlo ah halka kuraasta kale ay ku fadhiyaan waalidiinta ay carruurtoodu dhigtaan iskuulka gabadhan hooyadeed waa ay dhimatay balse ma aysan hilmaamin naxariistii hooyadeed imaqal daawadaha sharafta lahow haddii ay hooyadaa kuu nooshahay fadlan ku dadaal inaad baari u noqoto haddii ay dhimatayna u ducay waxaana allah subxaanahu wa tacaala ugu baryayaa dhammaan hooyooyinkeena inuu u naxariisto jannatul firdowsana hooy ugu dhigo maalinta aakhiro aamiin aamiin haddaba haddii aad tahay daawado ku cusub kanaalka Dacwa Tube fadlan ku soo biir kanaalka adigoo subscribe saaranayo gambaleelkana furo si uu muuqaal waliba uu kuu soo gaaro sidoo kale haddii uu muuqaalka ku cajab geliyay fadlan muuqaalka like saar siina share garay haddii aad awoodo waana ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan waa anigoo ah Saki Maxamuud oo idin leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh الحمد لله تزيد افراح
الحمد لله الحمد لله على الإسلام أكبر نعمة من الهادي. الحمد لله أمن سلام تنعم فيها رب بلادي. الحمد لله تزيل الهم تشفى المجروح وتمنع الغم. الحمد لله تزيل الهم تشفى